bismillaah kulanti wacan ku soo dhowaada fadhiga labaad ee taxanaha ama silsiladda ku saabsan siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saamaynta ay ku leedahay nolosha aadanaha. sheekh muscab oo noo sharxi doona mowduuca maanta ku saabsan dhalashada iyo barbaarinta nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam. ku soo dhowow gaashaale podcast. wandhowahay jazakumullah khayr. su-aasha koowaad waxay ku saabsan tahay xigmadda ka dambaysa in laga soo saaro nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam jasiiradda carabta maxay tahay? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وبعد. runtii ilaah subxaana watacaala caalamka intaa leeg waxaa jirtay boqortooyin waaweyn baa jirtay, xadaarado waaweyn baa jirtay, laakiin ilaah subxaana watacaala waxa uu ka doortay inuu nebigiisa caleyhi salaatu wasalaam uu ka soo saaro jasiirat alcarab, inuu carab ka soo saaro ilaahay doortay liciddati asbaab, sababo fara badan darteed. kow, waxay ahaayeen carabtu marka lagu qiyaaso xadaaradihii jaarka la ahaa waxaan dad fitradoodii weli ku jiro oo fitradoodii dhaafin ay ahaayeeno wad waxay lahayn iraado xoogan leh, markay wax fahmaana amba wax ay qaataan amba ay rumeeyaana diyaaro inay u dhintaan bay ahaayeen. maaragtama waxay fahmi waayaana ka dido iska diiday bay ahaayeen. marka waxaan dad weli ay saamayn afkaar kale, waxay ku jireen fitradii ilaahay ku abuuray, fitrat allahi ay ku jireen. oo xataa noo cadaynaysa waanu kana sheekaysan doonaa mar dambe sulxigii xudaybiya. wuxuu yiri markii ilaahay subxaana marka rasuul sallam heshiiska kala qorteen asagiyo Suhayl bin Amr, wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ugu dambeyntii wuxuu waxa qortaa uu ka yidhi hada ma qada calayhi muhammadun rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam. faqaala Suhayl baa yidhi, marka Suhayl baa hadlo wuxuu yidhi wallaahi buu yidhi low kunna naclam annaka rasuulullaahi ma sadadnaaka cani lbeyti walaa qatalnaaka. haddaanu ognahay buu yidhi, haddaanu ognahay inaad ilaahay ku soo diray guriga beytka xaramka kaamanu celineen kulamana dagaalaneen buu yidhi. taas waxay kutusaysaa yani waxaan dee fahmaan ay qaataan way qaadaneen 100%. isbedbedelka shaqadooda ma ahayn. kadib ninka Suhayl bin Amr ilaahay raale ka haday saxaabiga jaliilka, kadib waa dambu islaamay bacda alfatxigii yuu islaamay. kadib markuu islaamay wuxuu odhan jiray wuxuu ahaa qof salaad badan buu ahaa, ruux salaad badan oo sadaqad badan buu ahaa, weli nin ooyin badan buu ahaa oo lilmadu indhiisa markaaba ka soo baxaysay markuu qur-aanka maqlo. markaasuu odhan jiray wallaahi laa adacu mawqifan maca almushrikiina, wallaahi buu yidhi laa adacu mawqifan maca almushrikiina ilaa waqaftu maca almuslimiina milahu. yani halkan mushrikiinta aan ka joogsaday mowqif ma jiro, meel aan ka joogsaday mushrikiinta aan ka joogsaday ma jirto ilaa in la egman muslimiinta anaa ka joogsan doona. waxa ma jirta buu dhaha xilligii mushrikiinta aan ku bixiyey ilaa muslimiinta intaa in leegan aan ku bixini buu yidhi. lacalli buu yidhi waxaan rajaynayaa buu yidhi inuu an yatlu amri bacdahu bacda, inuu ilaahi subxaana watacaala wixii hore khaladadii hore iga dhacay oo ilaahay iga dhaafo wanaagan dambe aan ka dabageynayo. talabaad lamid waxaa jirta masalan haddaan kanu sheekaysano hindida haddaan sheegno masalan xadaaradii weyneeda hindida jirtay aan culamadii allahuma salli calaa maxamed, tii ruumiga jirtay bizantihii, tii waxaa jirta farisiyiinta jirtay. aragtama xadaaradahaas waxay lahaayeen kutub waaweyn, falsafeday lahaayeen, ahdaab bay lahaayeen, aragtay gabayaal, waxyaalo markaa civilization jirtay bay ahayd, xadaarado waaweyn oo jiray ahayn. marka way adag tahay in xadaaradaha ay baaba'aan amba waxyaalaha laga guuro, waayo waxay dad ku faano xadaaradooda ahaayeen oo diyaaro ayna u dhintaan, oo qolo walba waxay isku haysatay inay ku gaadheen meel la gaadho mustawii ugu sareeyey. marka way adkeyd in dadkaas wax kaloo jadiida loola yimido. marka waxay laakiin haddii carabta lagu qiyaasay kuma jirin civilizationna ma lahayn, xadaarad weyn ma lahayn, falsafo badan ma lahayn, waxay isteen waxyaalo yar qorqoran, kutub ma lahayn, waxyaalo yar ba xilligii zaman jaahiligi badawigii ay qorqoreen baa jiray oo la bedeli karayo. ta saddexaadna waxaan odhan karnaa carabtu waxay u badnaayeen
baadiyo badnaayeen way ka dheeraayeen madiinooyin magaalooyinka waaweyn maaragtay madiinooyinka waaweyn way ka dheeraayeenoo marka dadka magaalooyinka galo maaragtay madaniga madiinayaasha galo madiina viilasha waaweyn galo dadka baadiyaha degan way kala duwan yihiin dadka magaalada galo in dagaal uma jajabna adayga uma jajabna ma karayaan in adayg dagaalo galaan isbedel keenaan way ku adag tahay laakiin ninka baadiyaha joogo waxba lama inuu qorigiisa qaato u dagaalamo maaragtay marka madiinada tarafkan jiro waxaa dhalayku way ka dheeraayeen waxay ahaayeen dad badawi u badan oo adag oo dagaaliyana yahaayano weli xabadda kusii fiicnaan waagaas may oqoon ninku qof damco uu bareeri caadi ugu baxay laakiin may oqoon sheekada xagga dambe qadriga may oqoon aragtay xagga dambe qofka kaga imo مثلا qofku sii jeedo dil nifaaqa munaafiqnimada yani kolba weji ula bax waxay ahayn sifaad ay karhaan bahay carabtu ee la dagaalami jireen marka waxaa odhan karnaa bulshada carabta waxayd bulsho weli la isticmaalin bahayd saafiya baadiya dagaal u jajaban isbedel keeni karaysa yani marka la eego xadaarad civilization jadiida waxay ku dhismato oo dhan dadka dhisi kara civilization cusub sifaadku ugu dhanbar bas waxaa ka maqnaa un cid hagta isku keenta kitaab u samaysa nolosha macno jadiida ay ka siisa aragtana unbay u baahnaayeen laakiin dadku waxay ahayn dad diyaara ilaahay baa sii diyaariyey taa waxaan misaal ku dhufan karnaa kitaab oo qoraxa jirta nin la odhanaya glob baasha anda magaciisa aan khaldin oo ingiriis ahaa oo dhulkan mar ka talin jiray falastiin iyo maaragtay dhulkan haysan jiray suuriya dhulkan buu joogi jiray dhulkan shaamtan buu joogi jiray oo ahaa askari ingiriis u ahaa ninka askariga ingiriiska wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo asbaabta sababaha ay ku burburto dowladaha waaweyn xadaradaha waaweyn buu qoray kitaab lama odhan kare uu yar yahay waa 240 baash waxankaas oo maqaal oo kale marka wuxuu kaga sheekeynaya asbaabta ku dhimaato marka wuxuu sameeyey intuu asbaabta ku baaba'do xadaaraduhu iyo boqortooyinka waaweyn ku baaba'aan bay ku dumaan intuu ka hadlin wuxuu ka hadlo horta maxay ku dhismaan marka waxay ku dhismaan ku sheekeynay dadka nooca dadka xadaaradaha dhiso wuxuu waa dadka caynkaas waa dad muqaamarada diyaar u ah isbedelka diyaar u ah dad dagaaliyana dad baadiya aragtana ayuu yahay budmaha dad madiiniyo caasimada ka soo jeeda maha bud marka waxaan halka ka fahmaynaa hadaan carabta waga xaaladda ku jireen exactement waxay ahayd saas oo sheegaya ninkaasi haddeerta nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu yimiday ay islaameen ay qaateen adiga arkayo muddo yaro kooban iyo caalamka intaa la iqtaafihiisa ay ku furteen waa maasatay sheekh muscab intaan ognahay nebigu wuxuu dhashay sanadkii muroodiga maxaa loogu saaray caamul fiil iyo reer kuga dhashay caamul fiil sanadka muroodiga waxaa loogu magac daray xaadiso dhacday xaadisadaa dhacday waxa weeyaan waxaa jirtay waagaas xabashada najaashigii waaga noolaa boqortooyadii xabashada ee ku soo duushay yaman ninkii ciidankaas watay oo la odhanaya abraha ayaa wuxuu dhisay guri weyn buu dhiso wuxuu waxaan rabaa buuri inaan carabtu halkan kusoo xajido markaa nin carabta kamid a naftu ka baxdo cadhoodo waagii markaa wuxuu sameeyey gurigii ayuu saxaro intuu qaaday yuu la dhacay yani wuu cuntami weydeyna xaramkii kacbadii carabtu weligood buu xajin jireen ee wuu cuntami weydeyna kan kale la barbar dhigo marka markii sida ay yeeleen ninkii abrah la odhanayey wuu cadhooday markaasuu qaraar qaato wuxuu yihi waxaan ilaayo aan kacbada maka ku taalo aan baabi'iyo fadhinooma yaala buu kayidhi ciidankiisiyo marka uu ciidankiisii ururiyo uu habeeyo maaragteen markaas halkaas wuxuu u kacay maka marka waxaa maqlay nin la odhanayey duu nafar la odhanayo maqlay markaasuu reerkiisii la hadlo wuxuu ku yidhi reerkayow dhegeysta buu yidhi ninka saasuu yeelaya kacbadii buu baabi'inaya mad aragteen markaa buu yidhi ilaa inaan ka hortagno buu yidhi marka way ka hor yimideen way ku guuldareysteen oo ninkii abrah la odhanayay baa ku guulaystay dagaalkii
kadib waa kasii socday oo halkaasiyo maka u kacay. kadib markuu halkaa maka u kacay haddana waxaa ka hor yimid nin kaloo la odhanayay nufaylu yaa la odhanaya binu xabiib alqacthami nin la odhanaya haddana ka hor yimid isagii reerkiisii kiiba haddana la dagaalamay kiina ku guuldaraystay meeshii waxaa guulaystay haddana ninka abrah la odhanayay. waa labadii ninba kii dunafarkii iyo nufaylkiiba u wada qafaasho asaga way xidhnaayeen, waxay hayeen rag u xidhan bay hayeen. kadib markuu imiday halkaa Taa'if buu imiday, reer Taa'if waxay ka yidhaahdeen anaku dhulkeena uma socotid, waxaan anaku beydkeena ma waxaad u socotid bay ka yidhaahdeen. waxay iska lahayn anaku beyd kaloo la yidhaahdo laata ma aragteen ee lahaayeen oo sanadku waa ku caabudaan. waxay anaka keena uma socotid, waxa socota kamaka kamakana dee anaku kaama horjoogsanayna ka yidhaahdeen, waad iska mari kartaa dariiqa. markuu makadii tolo soo gaadhay ayuu ciidankiisii diray. ciidankiisii markuu diray wuxuu yihi waxa meelaha kasoo qafaalin karsin kasoo qafaasha adhi iyo xoolo wixii jiraba. xoolihii bay soo gurteen. xoolihii markay soo gurteen waxaa qasaar cajiiba jirta. waxaa kamid ah 200 oo neef uu lahaa nebiga awowgii cabdulmutalib binu haashim binu cabdimanaaf ayaa lasoo qabtay. markaasuu lagu soo daray xoolihii lasoo qaaday loo keenay abraha yaa lagu soo daray. kadib wuxuu yidhi nin buu u diray waa maka u teg buuhi, maka tega buuhi bal soo eega hadday dagaal rabaan waad la dagaalameynaa, hadday rabaan hadday yidhaahdina ma rabna inaan la dagaalanana waxaad yeeshaan buuhi shariifkooga madaxooga ii keena. markii sidii bay yeeleen markaa bay u tegeen cabdulmutalib bay la kulmeen. markaasuu ka yidhi anuu daaqad iyo itaal aan nagaga horjoogsano ma jirto wuu sheegay. marka anaku dagaal diyaar uma nihin buu ka yidhi. markaas ka yidhahda haddabana raac abrah uu ku rabaa, amiirkiina uu ku rabaa bay ka yidhahdeen. markaas soo raacay. markuu soo raacay ayuu waraystay. markuu arkay markuu soo arkay cabdulmutalib haybadda ka muuqato wuxuu jeclaystay inuu carshigiisa garab fadhiisiyo. laakiin haddana wuxuu yidhi ciidankaagu u cuntami weyday buuhi arrinkaas. marka wuxuu sameeyey balkale noo dhigay, balkale ii dhiga buuhi. tiibu ku fadhiistay cabdulmutalibna isgarab fadhiisiyey. markaasuu sheeka dhex martay. marka uu yidhi bal ii waran buu ka yidhi. markaasuu ka yidhi cabdulmutalib war anuu geeleygiiba ciidankaaga iga soo qateen, ciidankaaga waxaa ka tirahdaa geeleyga igu dara. markaasuu nafta ka baxdo wejigiisaas bedelay abrah. wuxuu markaan ku arkay buuhi anuu haybadiiyo waa qof weyn bay la noqotay buuhi. saakiin hadalkan kadib markaa iga tiri buuhi agteeda waa dhaadhacday buuhi, qiimahaagu agteeda waa dhaadhacay buuhi. maxaa yeelay buuhi anuu wuxuu beydka caabudaysayn baan u socdaa baabi'inaya buuhi, adna waxaad igula doodaysaa buuhi dhowr neef aan kaa soo qaatay waa sidee buuhi. marka uu ka yidhi isagna waa u jawaabo wuxuu yidhi anu waxaan yahay buuhi anuu geelan baan leeyahay buuhi, gurigaana beydka xaramkana ilaah baa iskale, rabbi buu iska leeyahay buuhi. maad aragtan rabbi yaa iskale buuhi, asagaad difaacan buuhi. waxaad yeeshaa ani igu dar geelaad iga soo qaadateen ani igu dara. markaasuu yidhi waa siya buuhi geeligiisii, geela ka soo qaadeen ku dara buuhi. marka geeli baa lagu daray. kolkaasuu haddii tole u soo kacay halkaayo maka inuu burburiyo isagoo raba kacbadii. hase ahaatee markay soo gaadheen haddii tole inay burburiyaan kacbadii, maroodigii ayaa diiday inuu u dhaqaaqaba halkaayo kacbadii. waxay idhaahdeen culammada siirada qaarkood ninkii nufayl uu soo qafaashay markii maad aragteen haddeer aan soo sheegnay yaa wuxuu maroodigu dhegta kaga akhriyo wuxuu ka yidhi uburk buu yidhi fadhiiso waxaad joogtaa dhulkii ilaahay xaramkaad joogtaa ee fadhiisa buu ka yidhi. marka maroodigii waaba uu fadhiisto waa diidayba inuu u dhaqaaqo halkaayo kacbaday. marka loo jeedo halkaa yeeshaa maroodigu u caymadawn, halkaayo iman marka loo jeedo maroodigu u caymadawn. laakiin marka halka maka loo dhaqaajiya maroodigu u fadhiistaan. maad fahamtay. marka waxay sameeyeen marka ayagoo yaaban oo maxaa samaysaan isle yay u imatay ilaah subxaana watacaala shamberihii u soo diray ilaah qur-aanka nooga sheekeeyay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil alam yajcal kaydahum fi tadliil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. shimbirihii buu ilaahay u soo diray. marka waa shimbirihii dhagax yaryar dhamaca
luga labana luga ay ku siteen midna afkay ku haysteen markaa ku tuureen raggii xabashadii markaasay isku yaaceen dhulka dariiqana ma garanayaan ilaa mar intii jidkay soo socdeen oo dhan ninkan Nufayl yaa soo hagayay oo soo waday halkaa markay mideen markay yidhaahdeen aw Nufayl waxay dhabeen inuu tilmaamo dariiqii ilaa Yamanta isagana waa iska qariyada waaba iska qariyo markaasuu u gobiyo gabagiisa waxaa kamid ah wuxuu yidhi وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينه ragii oo dhan mise qoomkii oo dhan waxay doonayaan Nufayl taabicayaan buuri waxaabad mudaba si ay doonayaan inay deyn igu leeyihiin buuri aniga ragan maxaa noo kala dhaxyaa buuri waa halkiiba uga hoos qaaday halkiiba Ilaahay ku halaagay Abraha jeeshkiisii Abrahana Ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuun buu ku salliday xanuun faraha cidiyaha cidyuhu ay ku daateen markaasuu si loo dhinta sida ugu xun buu dhintay ninka Abraha marka xanuunka uu Ilaahay ku salliday waxaa daatay cidihiisii oo dhan baa daatay xanuunkaasi uu la bukay Ilaahay subxaanahu wa tacaala halkii ku geeriyooday isagana markuu soo gaadhay isagooba gaadhinba Sanca oo dariiqa meelaha socdo yuu sidii buu ku dhintay Abraha Ilaahayna sidii buu ku xifdiyay beedkiisa kadib xadiisada kadib adeetooda ahlul Makka waxa la odhanaya ahlullah ehelkii Ilaahay oo dadkii oo dhan macal dowladihii waaweynaa way maqnaan qisadii baa caalamka gaadhay adeetooda qof ma damcin inuu halkaa Maka soo kaco ama dagaal uu ku soo qaado waxaa dhaxayd cinaaya ilaahiya rabbaaniya bahad Ilaahay baa saa ku ilaaliyey Kacbada oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala haddeed wuxuu ugu talagalay Ilaahay muraad baa kaga jira uu ka dambeeyey wadaysu lillahi waxa la soo waqtiga waxay gaadhay uu soo baxayay aakhirul anbiyaa ummadda adeetooda hagayay nuur jadiid oo Ilaahay soo diray fatradii yaa gabagabadeedii gaadhayd marka waxaa dhaxayd diyaargalow Ilaahay uu sii diyaargeliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiguna sanadkaas uu dhashay maroodiga qisadaas waxaas qisada darteed ba sanadku nabiga calayhi salaatu wasalaam dhashay loogu magac daray waxay noqotay qiso taariikhi noqoto bal lagu kala garta sanadada waxa la odhanay 2 sano ka hor caamul fiil sanad kadib caamul fiil maad aragteen kalendar bay noqoto waxa lagu kala garanayay waqtiyada lagu kala garanayay haddii ana galo nabiga calayhi salaatu wasalaam reerku ka dhashay wuxuu ka dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam reer bani Haashim bin Cabdimanaf bin Qusay bin Kilaab ilaa laga gaadhayo Cadnaan waxay ahaayeen dadka ugu sharaf badan bay ahaayeen Qurayshta oo bal aabihii baaba la xiriirada qisada ma aragteen Qurayshtu waxay caado u lahaayeen laba safar hijrata shitaa'i wa sayf xagaagi iyo jiilaalkiiba laba safar bilayn wuxuu ahaa Haashim ninkii bilaabay safarkaa hanba u sunneeyey Qurayshta buu ahaa marka uu yeesho waxay ahaayeen shariif dhalay bay ahaayeen dad waxay ahaayeen sumcad ku dhaxle Qurayshta ahaayeen bal noogu waran Sheekh Muscab xigmadda ama cibrada ku jirta ama ku ladhan inuu Ilaahay ka soo saaro ama ka doorto ambiyada nasab wanaagsan ama reer fiican runtii maxay tahay horta runtii Ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadaha Ilaahay baa kamid tahay Ilaahay ambiyada in wuxuu ka soo saari jiray markaste nasab fiican uu ka soo saari jiray مثلا هندان سوق قادنا نبي الله نوح عليه السلام وحكي هذا قوم كيسي مركو حق الله ويري وحيد هذين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قيلذين ألقى وحن كاركنا inay kumay qeybeen mise kumay daliilin nabi nuux calayhi salaatu wasalaam qoomkiisa waxay ka dadka ku raacay waa dadkii noogu liitay ba ku raacay bay jiraan sakana say ka mudan waa liidataa aragtama isagu wuxuu qof shariif ku dhax ahaayaka laakiin dadkii raacay markuu yaboohiisii aqbalay dacwadiisii aqbalay waxa noqdeen dad ducafadii masaakiintii qoomkii nabi nuux bahayd sidoo kale nabi saalax calayhi salaam مركو سجنا أويا وقوم كيسو حكنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وحكي كيدا دين صالح حوبة كيدا دين
qad kunta fiina marjuwan yani waxaan rabnay aan rajaynayna sayidkiina noqotidba hadalkan intaad ulan ka hor yani nebi saalax shariif uun ma ahayn bal waxa sugan inuu sayidkooga noqdo oo wuxuu ahaa nin la garanayo oo sharaf leh buu ahaa laakiin hadalka aad tiri darteed indhaheenna ka dhacday bay dhahdeen waxaa marka halkan waxaan ka fahmnaa inuu ahaa qof shariifa nabi ibraahim kadalik aabbihi wuxuu ku jiray shurafadu ku jiray soo soco ambiyadoo ku dhan markaad saa u eegno waxay ahaayeen shariif dhalay bay ahaayeen inta u badan ilaa nebigu muuse calayhi salaam asagu duruuftu qoomkiisa ay keentay inay noqdaan dad la adoonsanayo maad aragti laakiin saasay wadahayaan xikmaduna way badan tahay awalan xikmadda horeysa waxaan odhan karnaa waxaa masalan qof daciifa ama markiisa horeba hadalkiisa la qaadan inuu yidhaahdo maanta kaco yidhaahdo hor ilaahay ka baqo aniga raaca waad kaanaysa inay dadku raacaan laakiin markuu yahay qof shariifa oo la garanayo ehelkiisa la garanayo oo reerkiisu itaal iyo sumcad ku dhex leeyihiin qoomka waad kaanaysaa inay dadku yani waxaan ujeeda way fududaanaysaa inay dadku raacaan ay aqbalaan waayo waa shariifkoogii waa kay maqli jireenba awal waa kay wada rajaynayeen waa kay wada ixtiraamayeen maad aragti marka way fududaanaysaa inay ka aqaataan wuxuu la yimaado saa darteed ilahi subxaana watacaala wuxuu ka dhex dooranaya qoom kastaba ninka ugu mudan inaa la maqlo hamba la dhegaysto waayo dadkii waagaas waxaa dadka kala saari waxayd nasabkii sharafta ay leeyihiin reerku waxa qofku markuu ku jiro dadkii sharafta lahaa kasoo muuqdo dadka dhex muuqdo way fududaanaysaa inaan dacwadi laga qaato talabaad waxaa ku adkaanaysaa xitaa hadhow markuu u yabooha ilaahay ka baqi yidhaahdo ma aragti inay dilaan ma dilayaan yani waxay keenaysaa reerka uu ka soo jeedo inay difaacaan mise lagaga gaabsado oo dacwaddii nebiga masalan imka nin wadiica amba nin nasab weyn lahayn ma aragti handuu kaco dhada kaaleeya qaab maqala horta lama maqlayo taa waxaa usii dheeraanaysa waa la diliyo oo yabuuqiyo dacwaddu wadayba halkaa waa lagu goynba waa la ciribtari laakiin markuu yahay nin shariifa oo reer ka dambeeyaan horta haba diidaan dacwaddiisa laakiin waxaa ku adkaanaysa inay dilaan ma dili karayaan masalan nebi shucayb calayhi salaam waxay ku yidhaahdeen markuu u yaboohee dee u digay ilaahay ka baqo ilaahay rume yidhi waxay ku yidhahdeen qaala yaa shucaybu maa nafqahu kathiira mima taquulu wa inaa lanaraaka fiina daciifa walowlaa rahtuka larajamnaaka wamaa anta calayna bicaziiz qaala yaa qawmi arahtii acazu calaykum min allahi waatakhadtumuuhu waraa'akum dhihriya ina rabbii bima tacmaluuna muxiit yani nebi shucayb waxay kaga gaabsadeen maad aragta markuu u yaboohe u digay ay idhaahdeen iska dideen isagana uu ku waday wamaa uriidu an nukhaalifakum ilaa maa nahaakum canhu ku waday uu ka qaadan waayo waxay ka idhahdeen kasoo noqoy kama soo noqonaya buu ihi markaasay marka cadhada halka u dambeysay gaari markaasay idhahdeen lowlaa rahatuka yani reerkaaga handuu jirin hadaa reerkaaga ka soo jeedin yani waan ku dili lahayn waxay kaga hadheen amba ay ku dili waayeen maxay noqotay sababto reerku ka soo jeeda nebi shucayb hadduu bal noqon lahaa nin reer culus ka soo jeedin waa la dili lahaa mar hore nafta shay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu u yeedhay reer maka oo koray buurta kore uu yidhi kaaleya haddaan iga yidhaahdo buurtan dabadeeda ciidan baa jira nagu soo duulayo ma iga qaadanaysaan hawan kaa qaadanaynaa been weriga kugumana ogeyn yani runfolow baa haduliga qof run ku dhaqmaad ahayd taa weli waxaa usu dheeday reer culusna kasoo jeeday shariif buha markaan kaa qaadanaynaa ka yidhahdeen markii haddana uu ka yidhi ilaahay rumeeya naar baan iga digaya nigu ku wada isagana way cadhoodeen laakiin ku hagaagi karwaan inay dilaan markasta adeerkii yay u ashkatooneen abaa taalib ina kaaga saa buu leeyahay wiilka adeerka waa saa buu leeyahay yani may karin inay dilaan ama mid walba wuxuu dhahay haddaa dhowto wax ku dhufto halkay ka marayna adeeradii maragt marka waa muhiim ninka daaciga inuu reer culus ka soo jeedo maragt inkastoo diinta islaamku ay qiimeen laakiin ninka daaciga ama dacwad wado ama diinta faafinayo dii uu ka soo jeedo reer masalan nasab iyo sharaf leh hadduu ka soo jeedo way u dhowaanaysaa mise way suurtagali kartaa inuu ku guuleysto dacwadda wado
si arrinkaa uu faafinayo maaragtay way fududaanaysaa waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi xadiiskii saxiixa ahaa wuxuu yidhi wakhiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faqahu. jazaakum allahu sheekh muscab. imika waxaan gaarnay gebagabadii fadhigeenna maanta. su-aasha ugu dambeysa waxay tahay nebiga sala allahu caleyh wasalam goortuu dhashay dumarkii nuujiyey waxaa ka mid ahayd xaliimatu sacdiya oo kadib u qaaday baadiyaha ilaa muddo 4 sanaa. sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam agoon buu ahaa. haddaba su-aashu waxay tahay ilmaha in la qaado oo baadiye la geeyo oo lagu barbaariyo duruusta ku sugan maxay yihiin? nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhashay isagoo agoon u dhashay. aabihii waxaa u geeriyooday isagoo caloosha hooyaday ku jira. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam yatiimul ab buu ahaa. kadib haddana yatiimul ayuu noqday 6 sano kadib. haddana awowgiibaa markuu 8 jir haddana awowgiibaa dhintay. yani dadkii soo barbaariyey yaraantiisii ilaa uu ka gaadhayay 8 jir waalidadiisi way geeriyoodeen bahad. marka yutmiga agoonnimada waxay keenaysaa qofka markuu agoon yahay oo nolosha adag soo maro waxay keenaysaa inuu asagana qof noqdo allahumma salli calaa maxamed qof dareen badan la noqonaysa oo naxariis badan oo dabacsan bay noqon inta badan dadka agoomo oo dhibaatada ku soo mareen ay garanayaan. marka dadka agoomaha kale dadka ducafada taagta taalka yar waxaasoo dhan waxaan noqonaa dad u naxariista markasta fiicada kooxda markasta bulshada ummadda liidata waxay noqonaa dad u naxariista noqonaan markasta garabkooga u dhabarya. وإله سبحانه وتعالى وقلت لك التربية حياة ربانية. النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رحيم أبو الله المؤمنين بتقولنا حريص بدن بوها النبي عليه الصلاة والسلام وحاسد waxa keentay duruuftu soo maray darti duruuftu soo maray min yaraantii yahay markuu yara wuxuu noqonaa qof markaste u cadaalad fala kooxda taalka yar leh u sama fala u naxariista. marka qof kastoo daaciya waxa laga rabaa inuu haysto kayd caatifadaasa naxariista kalgacaylka dulqaadka samafalka markaste bulshada inta ugu taagta yar inuu أو هيستا أو هلا يعني لازم تكلا النبي عليه الصلاة والسلام أو باديها أو كوكوري ومهم المهم إنه باديها كوكورو وايو وحكون حكوريا طبيعة وكون حكوريا ما رأيتي وريه دحدو دهودي نظيفتا ما رأيتم مركب واحد كقفكو حنا فطرة دي سيبا السويا سجنان نسا قفكو فطرة دي سيبا سجنان نسا حنا قلنا قف أدق ديرن dhaqdhaqaaq badan ficilkiisu wanaagsan oo midalan akhlaaqdiisuna suuban tahay way magaalada ma aragtay imika ubadku way dhalanayaan inday bulshada dhexdooda akhlaaq xumo jirto imkada akhlaaq xumadu ay qaadanayaan aragtay sababta markuu baadiyaha u joogo waxa dhun ka dheeryahay magaaladii akhlaaqiyaadkii magaalada waxa dhun ka dheeryahay noqonaya qof fitradii ilaahay ugu talagalay sida uu noqonaya. nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaladda uu ku soo koray barbaarinta baadiyaha iyo agoonnimadaas waxay keentay inuu noqdo qof qiyaadiya oo dhiiran buu ahaayo marka la arko waa laga dareemayey caqli badni caqli wanaagsan firfircoon ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxaasoo dhan waxaa sababay xaaladda baadiyaha uu ku soo koray iyo adhigu soo jiri jiray. walidaalika wuxuu yidhaahdaa sheekh mustafa السباعي لا يتأهل بلد المركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي النبي. من عقل بدن أمبا تأهل أمبا جارة درجة لدار نمدا هجاميها. أما قفكي إن منجابك ما رأيته هنبا إسكا متوسطة ما فهمت وحين ويكدريين بين يوري إن النقدان ضد قياديين ضد لدار حق فكري هذا تهاي حق إن إصلاح aragtay toosinta hagaajinta xagga ruuxiyada ruuxaaniyadka hogaamiyaal ma noqon karayaan buu yidhi bal ilaahay sunankiisa ka mid tahay buu sunanka nolosha ka mid taho
الله يتمكن من القيادة في أي ناحية من نواحي الحياة عن جدالة واستحقاق الأغبياء والمضطربون في تفكيرهم. sunanka nolosha ka mid tahay wuri inay gaari waayaan buu yidhi dadka maangaabkii dadka maangaabka inay gaari waayaan inay gaari waayaan si darajada hogaamiyahay gaari kari waayaan ay noqon kari waayaan dad ummadda hogaamiya ummadda haga hadday tahay xagga islaax xagga ruuxaaniga halka fikriga gaari kari waayaan. walidaalika wuxuu yidhi shaacirkii carabta almutanabbi wuxuu yidhi lowla almashaqatu saada annaasu kullihim aljuudu yufqiru waliqdaamu qataalu buu yidhi haddii adayg jiri nolosha buu yidhi cid kastaa sayid noqon lahayd cid kaste yaa liideer noqon lahaa laakiin adaygan yaa dhisa dad koox khaas u sameeyaayo oo kooxdaasaa gaadha darajada qiyaadada ama intaa ka hooseysa way ku adkaataa inay amba noqdaan dad liideera dad hogaamiyeyaala dad isbedel dhaliya way ku adkaanaysaa mashaqadaas adaygaas yaa ummadda kale wuxuu yahay adaygaas nolosha adag waxay keentaa dadka kala farxaysa dadka kala miiraysa aragtama marka dadkii munaasibka baa baxaya inta kale halkaas ku hadhayaan ummadda hogaamiye ma noqon karayaan waa sunanka ilaahay ka mid tahay haddii kale ummadaas wada waxaan qof walba xodhan ana sayid oo waxaan dhacaysaa fawda dhacaysaa dhulku laaqmaya marka ilaahay sunanka ilaahay ka mid tahay inay koox u noqoto qiyaadiyiin kooxdaasna waxay noqonayaan waa kooxdii ku guulaysatay xilliga mashaqada istismaar samaysatay maalgashatay kale maalgashi oo kale maaragtay samaysay waqtigaa ka faa'iidaystay waxaa dhahdaa aday kasta la yidhaahdaa wax kaste oo aday kasta ku soo maro kama dhigno wada kharab oo wax wada xun shar maha gebigiisu sharna uu leeyahay adaygu khayrna uu leeyahay xilliga xitaa rakhaagu sharna uu leeyahay khayrna uu leeyahay marka dad kooxdaas waxay garanayaan soo loo isticmaaro waqtiga adayga dhisaya qiyam khaas u dhisaya qofka ku dhisaya ku beeraya oo qofka markaas wuxuu isbedel noloshiisa ku dhacaysa marka wuxuu yeelayaa inuu ummadii ka soo saaro noloshii adkayd oo u saaro noloshii fududeyd wanaagsaneed inuu soo saaro marka waxay xaaladahaas yanba lagu kala gartaa dadka kala miiraan ilaah subxana watacaala sunanka ilaahay kamid tahay masalan ayadu ilaahay noogu sheegay wala nabluwannakum bishay min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali waanfusi wathamaraati wabashiri saabiriin waxaasuu ku dhan waxayn wala yaclamana allahu aladiina sadaqu wala yaclamana alkaadibiin kullu hada waxay sheegayaan adaygan si ummadda u kala miirayo ummadda yuu kala miiraya ninkii toosa ninkii saxda ninkii munaasibka ahayn shiddadoo dhan wax kale shaqadeed wax kale maha ummadday kala miirta aragta masalan kuwa qaarkood waxay sameeyaan xaq iyo baatilkii kala saaraan kuwa qaarkood waxay sheegaan kanba liider mahay sheegaan ninkii raggaas waa kaasaas marka shiddadu ummadday kala reebaysaa saas weeyaan jazaakum allahu khayran sheekh muscab dhegeystayaal fadhigeeda maanta intaa buu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu